مفانتي واسمه حد نورتكم وقتها واسمه رس أنا أسي هو اسمه رس cajiib cajiib waxaad la yaabaysaaba maalinta ka dambaysa arkaysa haddii aad ismehersateen oo ismeher xadeen ma xalaal baa idiin tahay mise xaaraan bal waxaan weydiinaynaa culimada Soomaaliyeed أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والنبي صلى الله عليه وسلم هوينيدي غورسد هويني كاستا او غورستا ولي لآن غوركيدا waxba kama jiro subhanallah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda qaaliga waa in salaamay meel kasta aad joogtaan walaalkiin deeqaloocow channel haddaad kanaalka cusub tahay subscribe-ka like-ta share-ta commentiga ha hilmaamin inkastoo niyo ma garanayo war cadowgayga batay asxaabtayda maanta waxaan rabaa inaan idinla dhaco sheekadan yar ee media TikTok qaybta ka soo cusboonaatay raggii isqabay iyo xaasaskii ay magaranaysaa ka sheekeynayaan xumaatadoodii qaabka isu guursadeen hadduu fool xumaa haddii wanaag la isu guursaday wanaag arki maysid dirso fiiriya gabadhan iyadoo wax baratay oo jaamiciyad oo maasha Allah maanta xirfado aanan halkan lagu soo koobi karin leh haddana ma aragtay yani gabar libis shalay markaas u guursanay gabar libis badan gabar reer magaal gabar maxaa la isheeg nolosha magaalada fahansan haddana waxay iga qaadatay in aniga haddii aan albaabka ka baxana ay gurigeeda joogayso ilaa meesha ugu tago kursiga ugu tago ugu soo noqdo ma fahanti meel hadaa magaalada ka jiro haddii aysan adeeg ay guriga u baahan yahay haddii aysan magaalo u aadeen soo doonayn mooye si kale inaan dhinacna magaalo aan ka joogo iyadan dhinac orniyahow haddii horta aad nin nasaba tahay dayaxow gabadhaada hadday jaamiciya tahay adigay kuu tahay hadday dhakhtaro tahay adigay kuu tahay haddii ay wax walba tahay adigay kuu tahay anigu waxaan kugu haystaa arrintan wadaadada bal aan ku noqono ay leeyihiin xaaraan weeye maqtaca waayahay ma anaga kuniri mediaha la kaalay TikTok aalada TikTok ee horumartay guurkaagii ama mustaqbalkaagii marka arintaas adiga un bay kugu taalaa inaad ka toobad keentid reerkii gabadha aad ka qabtayna in aad dib u weydiisatid haddii aad weydiisatoy oo lagu darayna waa maasha Allah haddii ay maanta weli sidii aad isku qarsateen ay lisfaraal sakin qaadayna inaad aabaheed iyo weligeed aad weydiisid waa ku furan tahay toobadu way furan tahay marka waxaan leeyahay bal aan ku noqono dayax iyo familigiisa iyo kan doqonta ah ee Idris Bebe oo weliba soo taagan inuu sheekadaas sii dhageysto subhanallah waa arrin lala yaabo oo mucjiso ah dad ku faraxsan inay bulsho la wadaagaan waa ismeher xadnay isma kaaya siin wala iskuma kaaya xirin marka anigu waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kale noocaas way ku dhaqantaa way badan tahay laakiin waxaad ogaataan in aanay xalaal ahayn gabar aan weligeeda bixin diinta intaan ka aragnay oo ka baranay baa nagu filan inta kalena adeer waxa idin leeyahay Soomaaliya ka waantooba gabar aabe hooyo dhashay oo weligeeda joogo in aad mehersataan meher xadaan waxaasuna waa xaaraan maqtaca diintu waxay ka qabto ku